ajakis miyaa beeshiisa u dooranaysa xildhibaan qaran faallada caawa mid ka mid ah jilaayaasha iyo filim codeeyaasha ugu wanaagsan ee dalka ayaa hadda u tafaxiitay jiheynta aayaha mustaqbalka Soomaaliya kani waa Cabdi Muriidi Dheere Ajakis waxa uu ku dhashay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1982 ilaa 1983 ayuu dhameystay waxbarashadiisa dugsiga sare wuxuuna sidoo kale qaatay hal sano oo gurmud qaran ah taas oo waajib ku ahayd ardaydii xilligaas waxbarashada dhameynaysay soo ifbixidii magaciisa iyo markii ay bulshada barteen waxay ku aadaneed dhamaadka qarnigii hore ee 90meeyadii xilli wadanka uu ka socday qallaaso sokeeye ayuu ku biiray in bulshada uu madadaaliyo ayadoo waqtigaasi ay adkeed qof caan ah in bulshada lagu dhex arko وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل يا ساعة يا راي. بقسي ما يوقع. مو بقسي ترتيب. نيو بلاد هاي بعدين. يا. أبين هرو. مين ملكه؟ السعودية وفرنسا جوكتو. وعي إيش أكتي؟ وكان أنت ما قلت. Ajakis marka laga soo tago jilaa iyo film codeeye inuu yahay waxa uu door weyn oo horumarineed ka qaatay barnaamijyo dhaxalgal u noqday bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo dadka wali maankooda ka guuxaya howl maalmeedkii uu hal abuuray waxaan cabiraa rajada aqeedo markeed nin isku quslaayo maya hoos maxaa u fiiriyoosaa maxaa kaa dhumi Aabe Muriidi higsigiisa siyaasadeed ayaa ah cadaalad sinaan horumarin wada shaqeyn waxqabad iyo isla xisaabtan Master Cabdi Muriidi hibooyinka gaarka u ah waxaa ka mid ah ku hadalka luqadaha kala duwan sida Arabiga Ingiriiska Talyaaniga iyo luqadda Urduuga ama Hindiga jiilka maanta ina madadaalinaya ee inoo turjumaya filimada dhaxalgalka ah ee afafka khalaad ayuu soo saaray waana macallin aan hagrasho aqoonin namuwalid maxaad u qaadanaad kuwa makaale haddii maanta anigan ku imaanayn mala socota in nimanka isku dil lahayn warkayga maxaad u maqli lahayn sheegay maxaa kuu keli bas muddig baynin man dambana isku dil أمس جعنتي ذا وحبك كامل كني هني إسكتين ودليل ما تنبين الصومرتو هدي إسكتين ذا جعنتي ذا يعني كعانة ماله يا روي وأنا ودي تروح البنا ودي تي كعانة ماله يديني كده نمكس هدي الكوي ما يصير كوي لاي كاس وكوي لاي muwaadinkan beesha uu ku abtirsado ee banaadiriga qaasatan bandhabow ayaa shir ay Muqdisho ku yeesheen waxa ay ku ishaareen Ajakis in uu ku matalo kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya 4 sano ee soo socota musharax xildhibaan Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ahna aabihii naxariista iyo dhiirigeliyaha bulshada hanka leh oo la hadlayay Durdur Media Group ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyay sababta ku dhiirigelisay in uu istaago kursiga beeshiisa baarlamaanka federaalka السلام عليكم دمان أصحابتي تاجريالكيغا أنيقو عبد المريد دير أجاكس وحان أشيغا إن المشرح اللبان نمو وبيشي دبندوو أن أهي أنا ننقف تارجت كو أهين أنا ننقف معارض كو أهين اسبدل كو وحوانا أكسن وحان رجينا إن شاء الله تعالى إن أتقرب إيقوسين دونتان مشرح نمو اللبان نمو بيشي بندوو إن شاء الله وحرجينا إن نقول سدون بإذن الله كريمة Ajakis marka aan xirfadiisa wax yar ka taabano waxa lagu xusuusan doonaa filimkii Kaahena ee uu soo baxay 19 May sanadkii 2000 filimkaasi oo aabanimo naxariis ay ka muuqato uu ugu codeeyay jilaaga weyn ee Bollywoodka Anubam Khair Soomaalidana ay u taqaano Abaska marka laga yimaado madadaalada aflaanta la turjumo balse waxa xaqiiqo ah in waaqica dhabta ah ay ka hadlaan aflaanta Ajakis
way u sahlan tahay la jaanqaaditaanka marxaladda waddanka hadda uu ku jiro maadaama uu og yahay boogta halka ay ku taallo. Aabe Muriidi oo aan weligiisa waddanka ka bixin ayaa dalka waxa uu la soo qaybsaday duruufihii dalka ka jiray isaga oona marnaba ku haminin in waddanka uu ka tago. waxa uuna awood buuxda u lahaa in qurbo uu aado halkaasna uu ku noolaado, balse waxa uu ku dhiiraday in dalkiisa marnaba uusan ka bixin, ummaddiisii uu madadaaliyo, dadkiisii uu u adeego. maantana waa mid ka mid ah musharaxiinta baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. bahda shirkaddan oo ah shirkad madadaalo waxa ay Cabdi Muriidi Dheere u rajaynaysaa guul iyo inuu bulshadiisu u horseedo wanaag aaya leh. warbixintan cajiibka ah waxaa Baariis ka soo diray hogaamiyaha Durdur Media Mohamed Gulfam, waxaana idin soo jeedinayay anigoo Xasan Toob ah, farsamadii Liibaan Shoorlah. kulanti dambe oo xiiso leh, guuleysta dhammaantiin. dadweynaha Soomaaliyeed waxa lagu bixaarinaa in isbitaalka Soomaali Specialist Hospital oo ku yaala KBB degmada Hodan kasoo horjeedka Jaamacadda Salaam uu fulinayo qaliimada guud oo lacag la'aan ah. qaliimada waxaa fulinaya Dr. Rami Hanuuf oo ah dhakhtar Suuriyan ah lehna khibrad 20 sano oo qaliimada guud ah. qaliimada isbitaalku uu fulinayo waxaa ka mid ah qaliimada eernada, baabasiirka, burooyinka minka, dhagaxa xamiitida, dhagxaanta kaadiheysta, borostatada iyo burada dhunta. faahfaahin waxaa kala xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran.